kulankan oo ay isku xogwareysanayeen haweenka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana shir gadoominayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka Marwe Shamso Ibraahim Maxamed iyadoona kulanka ay u dhamaayeen gudoomiyaha haweenka gobolka iyo kan degmada Baydhaba iyo xubno kale intuu kulanku socday waxaa lagu jaxjeexay qodobo dhowr ah iyo sidii lagu kaabi lahaa baahiyaha gaarka ay qabaan haweenka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed ugu horreyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha haweenka gobolka iyo kan degmada Xaawo Sokor iyo Marwe Muraayo Madeer isla markaana wax badan ka taabtay baahiyaha ay qabaan haweenka shir xog waraysi iyo isbarasho oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo gudoomiyaasha tumanka xaafadood iyo guud ahaan haweenka koonfur galbeed wali meel raayis wasaaradda haniin bandhikaasay in dadku iyo iswaraysadaan xaaladii iyo akhbaaraadka si xaalay wali ku hadalnay qaabkii dadka shaqeeyayaan iyo taariikhdii dadka leeyin oo dad ilaa iyo 7 sano shaqeeyay volunteer ka shaqeeyay dhibaato badan dalku hamari wal xuquuq ay madaasaytii injarna wasiiradu way ku codsanay inay gabdho mushaar hadii lan helo kor lan hela hadii mushaar lan waa shaqo abuur lan suubi hadii lan waa inay sometimes mararka qaar lan hela meel raayis wali la kacaawi koriyo farxad galiyo iyo lan hela wali bood solar deegaanka shaqeeya abaaran shaqeeyaha deegaanka wal mushaar iyo qaadayaan wali sheegnay wasiirada baahida madaasaytii deegaanka ku jara oo kumid in jaran gabdho oo dhagooliyaal gabdho agooman haysada gabdho indhooliyaal walbarasho fadayaan soo adduunyada dadshe oo meel raayis disable ka kulliyo wali boodad walbaradahayo wali argaasay dad professoriin PhD wada oo indhoole wali argaasay dad professoriin PhD wada oo dhagoole walan barado kornamale wali kala jiraan iyaal badan oo darbajiif beledka meel raayis qaybashay shalgadiisan ka shaldeedsan ilaahay dawlad cadaalad oo dalkan dadkan ma raayni weel ilaahay lang ma raaylan qolqobada gordawni weel way kala siin codsaday isin walba malihidin gunta dambe ee kulanka waxaa soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Marwe Shamso Ibraahim Maxamed oo sheegtay in ay wasaaradda ay wax badan ay dabooli doonto baahiyaha asaasiga oo ay qabaan haweenka midda koowaad waxay tahay horta adduunyadan waxay ku dhisan tahay haween mar walbana waxa muhiim ah meel haween wax aysan ka qaban karin yani ma aaminsan rag in wax ka qaban karo because haweenka waa hal doorka nolosha yani deegaankiina aad ugu shaqeeysan anaga kaliya waxa garab idinku siin karnaa yani oo idin la qaban karnaa dhiirigelin ina idin noqono cunug adiga dhashaa maanta hadii gadaal laga riixin wax uusan qaban karin marka bini aadamkan wuxuu ku fiican yahay waa dhiirigelinta wasaaradda haweenka koonfur galbeed Soomaaliya waxay idin ballan qaadi doontaa xuquuqdii aad lahaydeen geed gaaban iyo geed dheer in loo koro midda kale waxay tahay waxa la wixii maanta oo wada shaqeynaa oo si sax noo dhaxmari karta diyaar idinahay gacmo furnaa idinku soo dhaweynina deegaanka idinka iska leh wasaaradda sheegan idinka ku magacaawan insha Allah biidnillah alkariim wixii hadda ka dambeeyay xaalad waxba laga bedeli doona isbedel degdeg waa arki doontaan sida awal u soo sabarteen u soo dhabar adeegteen in wixii hadda ka dambeeyay dardarka shalay ku socoteen mid ka balaar ku socod doontaan ayda ka codsana anagoo garbihiina taagan wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa muddooyinkan dambe dadaalo ugu jirta sidii dib loogu soo celin lahaa xuquuqaha ay leeyihiin haweenka maxamed Serjuu RTN TV Baydhaba.